السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknolojiyadda. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونقصد وضياشنا قيمها يقايا نقمض ميل والباجوكتان وحد كسو دواتان مقال عصب. مقال كان إن شاء الله وحن كبردنا قاب كان لو سمي page number مركز استعمالي سو مايكروسوفت وورد نوعيدي سكرة دوان. balse marka hore daawada haddii aad tahay saaxiibka cusub channelkeena Hanweyn Media waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad furto gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub. sidoo kale ha ilmaamin inaad like, share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan. mahadsanid, weligaana guuleyso. soo dhawo mar kale daawade si aan u sameyno page number waxaa soo furtaa marka hore Microsoft Word ka isticmaalayso nooc doona ha ahaado marka uu sidan kuugu soo kacana waxaad imaanaysaa qaybtan labaad ee ku qoran tahay insert home ayaa kan koowaada kan labaad oo insert ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad ka sii dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay page number. dabcan warqadda marka ay ku diyaarsan tahay qoraal badan ay samaysay markii aad rabto qoraalada marka inaad kala xadido aad kala soocdo marka waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho page number. halkan ayaad ku dhufanaysaa page number. dabcan doorashooyin badan ayuu leeyahay. kan hore waa in page numberka lagugu sameeyo qaybta sare. noocyo kala duwan ayaa halkan ku jira hoos hadaad usii rogtana waad arkaysaa. okay su'aal hadda mid ka mid ah tijaabino kan oo kale waad aragtaa markaan page numberka waxaa lagugu sameeyey qaybta headerka ama madaxa sare ee warqadan. sidoo kale haddii aad u baahan tahay page numberka inaad ka dhigato qaybta hoose waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay bottom of page. isagana sidoo kale wuxuu leeyahay doorashooyin badan. mid ka mid ah ka dooro si uu tijaabo kuugu noqdo. dabcan kii ku anfacayaan dooranaysaa mar kastaba. haddii aan ku dhufto waa lataa pageka imika inuu u guuro qaybta hoose. okay sidoo kale qaybta saddexaad waa page margins. dabcan qaybahan waxaa lagugu soo bandhigi doonaa page numberka halka uu tagayo. kan oo kale dhanka leftiga ama dhanka bidix ayuu tagayaa. kana waa dhanka right ama dhanka midig. kan waa dhanka hoose laakiin u janjira dhanka bidix. kana sidoo kale waa dhanka hoose asna sidoo kale waxa uu jiraa qaybta midig. haddii aad u baahan tahay noocyo kalena halkan ayaad ku dhufanaysaa. dabcan waxaad kala soo degaysaa office.com halkaas ayaad ka helaysaa noocyo badan oo maxaa lahaay page margins ah. dabcan qaybtan kale ee loo yaqaano format page numbersna waa page numberkaaga hadba qaabka jeceshahay inuu kugu soo muuqdo hadaad ku dhufato. sala hadda halkan waa number soo maaha ama waa tirooyin waxa dul saaran. halkan waa tirooyinkii oo negative ama calaamada minuska ka jirta laga hormariyay. halkan waa xuruufta carabiga haddaad isticmaalayso dabcan luqadda carabiga. qaybtan hoose sidoo kale haddaad isticmaalayso xuruuf oo alphabetska Englishka. okay sidoo kale qaybtan hoosena haddaad isticmaalayso Roman numberska. dabcan qaybtan waxaa lagugu diyaariyey qayb badan oo loogu talagalay in lagu kala saaro page numberka haddii la isticmaali lahaa luqado kala duwan iyo xuruuf kala gedisanba. qaybta ugu dambaysa ee ku qoran tahay remove page numbersna waa in la baabiyo dhammaan page numberka ku yaala warqadan. dabcan waxaan rajeynayaa inaad badan ka fahantay qaabka loo sameeyo page numberka gaar ahaan markaad adeegsanayso Microsoft Word noocyadiisa kala duwan. waxaan rajeynayaa muuqaalkeena maanta halkan kusoo gabagabeeyo. tani muuqaalkeena muuqaalka xiganta u kulmi doona walaalkay Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku dhaafay sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.